hantida ugu buuran ee aynu haynaa aynu ka tegi karna waa ilmo saalixa waa ilmo la hagaajiyey inagu ka bulsho ahaan mid si fiican baynu u fahamsannay ilmaha inuu wax uu cuno la siiyo oo uu ilmo xooggan oo naaxsan oo caafimaad qaba noqdo hadduu xanuunsado in la daweeyo oo dhakhtarka la geeyo oo loo dadaalo hadduu yar yahay in la tallaalo oo xanuunada mustaqbalka ee laga cabsanayo laga tallaalo waa feeding curing iyo vaccination taqdiya iyo tatciim iyo cilaaj haddaba waxaan leenahay intaasi jidhkay ku saabsantae intaas oo nafsiya buu u baahan yahay ilmuhu sida haddii cunno aan fiicnayn loo siiyo uu u bukoonayo ayaa haddii suluukiyaad iyo afkaar iyo dhaqan iyo caqaa'id aan fiicnayn lagu ababiyo uu dhaqankiisu u bukoonaya yani waxaa bukoonaya waa maxay waa suluuggiisii iyo dhaqankiisii haddii waxa la siiyey ee lagu canqariyaanu wax fiican ahayn ilmuhu sida haddii waynu aragno wax weecadoo muuqda inuu sameeyey aynu nooc min alcilaaj oo ciqaaba u samayno ayuu u baahan yahay inxiraafaadka markuu ku dhaco in la toosiyo oo qalqallooca laga bi'iyo sida uu ugu baahan yahay tatciim qofku marka uu ku nool yahay meel xanuunnadu ku badan yihiin maalan dhakhaatiirta ama neersinka ama waxyaabahaasi meelaha xanuunnadu faafa ay degan yihiin jooga marka hore iyagaa la tallaalaa waxaa loo tallaalayaa inaan xanuunkan ay dawaynayaan iyagoo aanay qaadin dadku marka uu ku nool yahay meel kaljarali kala gedisan gaal iyo muslim iyo cid weliba degantay waa meelo khatara markaa multicultural meelo dhaqamo badan laga haysto markuu qofku degan yahay wuxuu u baahan yahay kow intuu yaryay in si fiican loo tallaalo oo laga tallaalo xanuunnada bulshadu qabto oo ay maxay ugu horreeyaan xanuunnada caqadiga ah intuu yar yahay in loo laqimo oo la baro oo lagu tadriibiyo caqiide islaamiya saxiixa si uu tallaalu helo maxay u taraysaa waxay u taraysaa inxiraafaadka suuqa markuu u baxo inaanay dhibin inaanay mashkilad ku noqonin sidii kii laga tallaalayey xanuunka laga tallaalayay